arlada adilagu aamino umada uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko ay furan idinkuma arkaysi ila adeerko min xilqaaday qadiibo wayjita inaan isbitaalkaasi booqasho aan ku tagnay arrinka weyn oo meesha aan ka lehna waxay ahayd inaan howlgallada isbitaalada ka jiraan inaan ogaano oo la sheekaysano qaar dadka binaha kamid ah khaasatan aan la hadalno dadka ka howlgalaan isbitaalada shaqaalaha dhaqaatiirta kalkaaliyaalka iyo maaragtay dadka idaarooyinka oo xilsaaran waxaan hubno waxaa waaye isbitaalkaas daawooyin ku filan way jiraan ilaa haddana wax ma hayno caddayn arrimahan lagu eedeynayo wax caddayn oo ilaa haddana loo keena ma laha laakiin ma ogolaanayno in anagana meel cidan lagu eedeeyo dadweynahana in maaragtay waxay cabanayaan hadduu jiro ayadana maaragtay ma ogolaanayno qasab wixii xal oon ka gaari karno waan ka gaaraynaa libaaritaano waan suubinaynaa laakiin dhabta jirta ayaa waxay tahay daawooyin ku filan isbitaalka inay yaalaan ay dowladdana ugu tala gashay laguna maaragtay qarash gareeyay dhaqaale fara badan ay dowladda had iyo jeer ay ku bixiso daawooyinka dadweynaha waxyaalo fara badan waaye arrinka u weyn oo hadda aan xoogga aan saar rabno horta waxaa waaye arrimaha caafimaadka hooyooyinka iyo ilmaha ilaa sidaan ognahay as-aaska bulshada waa hooyooyinkaas iyo ilmaha hooyooyinkiina waxaa waaye ilmihii bay maaragtay ay caloosha ku qaadaan ayagii baa maaragtay umulaan ayagii baa tarbiyayaan ayagii baa xanaano siiyaan ilmahana dee waa mustaqbalka anaga berito waa maaragtay in caafimaadkooda guud la ilaaliyo talaalkooda la ilaaliyo meesha ay ku nool yihiin iyo nadaafadooda aada loo fiiriyo marka caafimaadka ilmahaas iyo hooyooyinka iyo khaasatan inaan aada ula dagaalano umulraac waa hooyooyinka umulraacaan isbitaaladaas ayagoo la sheegaya magaalada Gaarisa town ka baxsan booqasho ayaan ku tegay qaar kale oo badanna waan ku wada tegi doonaa magaalada Gaaris daafeeda dhan waan gaari doonaa hadduu alla idmo xaqiiqda waan soo ogaan doonaa laakiin sidaan hadda ka hor hadda aan kaga dhawaajiyeyba markaad waraysigan aan bilaabeynay isbitaalka guud oo Gaarisa sidoo daawooyin ay u jiraan oo maaragtay aan aaminsanahay in lagu eedeynayo iska maaragtay war suuq iska yahay umay kuwa kalena aan ku adkaysanayna inay daawooyin ku filan ay jiraan laga yaabaa dulduleela inay jiraan maamul guud oo ballaaran ku jirana dulduleelo lagama waayo laakiin shaqadaanada ayaa waxay tahay oo hadda naloo daariyey oo anagana aan maaragtay ay nala go-an tahay in dulduleelaha sito aan daboolno waxaan ugu baaqi lahaa u sheegi lahaa horta waxaan aad iyo aad ugu aaminsan oo ku kalsoonahay khidmada caafimaadka goobaha isbitaalada dowladda ay leedahay laga helo meel kale oo laga helo malaha marka dadweynaha waxaan dhihi lahayn intiinan aadin isbitaalada qaalka oo lacagaha faraha badan idinka furanayo oo dadka shaksiga ay leeyihiin bal ka war doona isbitaalada dowladda isbedel fara badanna wuu jiri doonaa xiriirka maaragtay shaqaalaha isbitaalka kale iyo idinkana aad u wanaagsanaan doonaa khidmadana aad bay u wanaagsanaanaysaa marka ka faa'iidaysta khidmooyinka caafimaad oo laga bixiyo isbitaalada dowladda jeebkiinana way u roon tahay caafimaadkiinana way u roon tahay si walbaba way u fiican tahay marka waxaan ku baraarujin lahaa bal inay ka war doonaan haddii wax qaladaan aadan aragtiinna intiinan maaragtay goobaha bulshada iyo ninkiina ku sheekaysanin inaga noo soo sheega talaabo cad ayaan ka qaadaynaa waqti walbabana inaan maaragtay idin garab istaagno ayaa naga go-an